taliyeysanayaa saldhiggii la wareegay ciidan la yimiday qoraalkii saldhigga laga tiray oo weri aan wax xubsan waxa jirana aan ka warqabin oo ka warbixiyay waxa la sheegana wax kama jiraan waa degmada ana xakumo wax dhiba ee ka dhacay amba wax ciidan amba wax ka dhacay haba yaraatay xataa maagana ma jiraan. waxaan ku suganahay saldhigga degmada Gubadley ee gobolka Banaadir saacadii la soo dhaafay warar kala duwan ayaa laga faafiyay saldhiggan sida ka muuqata derbiga ama gidaarka ku wareegsan saldhigga waxaa ku qoran halku dhigyo ka turjumaya in halkan ay tahay saldhig ay ku howlgalaan ciidamada booliska Soomaaliyeed sida qoraalka iga dambeeya boolisku waa ilaaliyaha naf iyo maal waxaana soo gaaray saldhiggan taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gubadley waxaa sidoo kale halkan ku sugan taliyaha booliska degmada Gubadley ee saldhiggan ku howlgalaya mas'uuliyiinta kala duwan ayaa waxa ay booqdeen qaybaha uu ka kooban yahay saldhiggan gaar ahaan qaybaha xafiisyada iyo sidoo kale qaybaha dadka lagu xiro warbixinteenan waxaynu ku eegi doonaa markii mas'uuliyiinta halkan ay yimaadeen hadaladii kala duwanaa ee ay jeediyeen iyo sidoo kale waxa ay ka yiraahdeen hadaladii kala duwanaa ama hadaladii saacadii la soo dhaafay laga faafiyay saldhigga degmada Gubadley oo dhawaan iyadu markaasi noqotay degmo buuxda kadib in muddo ah oo ay deegaan ahayd. taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi taliyaha booliska qaybta bari taliyaha saldhigga booliska degmada Gubadley iyo gudoomiyaha degmada Gubadley Cabdullaahi Kaalibey ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qaybaha uu ka kooban yahay saldhigga degmada iyaga oo kula kulmay qaybta dadka lagu xiro dad iyagu markaasi xabsiga ku xirnaa taasi oo muujinaysa in saldhiggan uu yahay mid shaqeynaya isla markaana qabanaya dadka iyagu markaasi la soo eedeeyo ama faldambiyeedyada lagu eedeeyo taliyaasha iyo gudoomiyaha degmada waxay la kulmeen qaar ka mid ah maxaabiistii ku jirtay saldhigga degmada Gubadley ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Gubadley ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Kaalibey ayaa waxa uu sheegay in saacadii la soo dhaafay warar been abuur ah laga faafiyay saldhigga degmada Gubadley isaga oo tilmaamay in dhammaan saraakiisha ciidamada booliska ee halkan yimid ay indhahooda ku arkeen xaalka saldhigga degmada iyadoo aysan jirin wax qoraal ah oo laga tiray isla markaana qaybo ka mid ah xabsiga saldhigga ay ku xiran yihiin rag markaasi waxaan ku sugannahay saldhiggii degmada Gubadley waa u jeedaan waxaa joogo taliyihii saldhigga taliyihii qaybta waxaa suguna soo gaaray oo nala joogo taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo dhammaan saraakiishii saldhigyada qaybta bari dhammaantood halkaan aan ku wada sugannahay xalay barbagaande magaalada la fidinayay inaan waxba kama jiraanta waxna ka jirin ayaan saaka halkaan isugu wada nimiday xalay waxaan arkaynaa barbagaanda leeyahay taliyihii waxaa la sameeyey taliyeysanayaa saldhiggii la wareegay ciidan la yimiday qoraalkii saldhigga laga tiray oo weri aan wax xubsan waxa jirana aan ka warqabin oo ka warbixiyay maantana saxaafadii oo dhan wada joogto madaxdii oo dhan wada joogto waa been iyo barbagaando waxaasu gudoomiyaha degmada meeshan aniga ah waxaan ka warqabo oo hadda dhibaatana ma jiraan saldhiggina waa kana saldhiggana ciidanka booliska iyo waxaa wada joogo dhammaan goobtan ku wada sugan maamulkii degmada waxa la sheegana wax kama jiraan waa degmada ana xakumo wax dhiba ee ka dhacay amba wax ciidan amba wax ka dhacay haba yaraatay xataa maagana ma jiraan intaasaan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadayno waxaan la joogo taliyihii qaybta taliye cusbaa saldhigga la soo magacaabay iyo dhammaan saraakiishii qaybta bari dhammaantood oo iyagoo dhammaan taliyihii gobolka Banaadir taliyihii booliska gobolka Banaadir dhammaantood way wada joogaan aad iyo aad u mahadsantiin. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.